بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhowaada daawadayaasheeda qiimaha badanow. muuqaalkeena maanta waxaan kaga faalloon doonaa 5 qiso oo xaqiiqo ah. inta aynaan u gelin muuqaalkeena maanta waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto, faallana ka bixiso haddaad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirto. ku soo dhowaada muuqaalka oo faahfaahsan. daawadahayga qiimaha badan oo ka waran haddii qabiilkaagu kuu tashado oo yar iyo weyn adiga kuu tashadaan, qaraarka ka soo baxaana uu noqdo in adiga lagugu gubo nolosha, maxaad samayn lahayd? yaadse soo xasuusan lahayd? qisadan oo dhab ahi waxa ay ku dhacday nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam. daawade soo qor calayhi salaam. ma soo qorta? qowmkiisii ayaa u kulmay kuna tashaday inay nolosha ku gubaan, laakiin nebi ibraahim qalbigiisa waxa uu ku xidhay ma baahdaha loo wada baahan yahay. isaga ayaana u gargaaray, waxa uuna la hadlay dabkii, waxa uuna ku yidhi xarriquuhu guba ibraahim wansuruu u hiiliya oo u gargaara aalihatakum ilaahayaalkiina. ilaahay loo gargaaraya meesha ka soo baxay. qaaluu xarriquuhu guba wansuruu, ayagalay culays ku yihiinba, ayagalay gargaaraya, ayagalay meesha ay joogaan u xaaqaaya, ayagalay wax marinaya, ayagalay dhar mataqaanaa dahab iyo xariir saaraaya. macnaha mashaakil iyo tacbaada ka haysta. qaaluu xarriquuhu guba ibraahim wansuruuhu una gargaara, wansuruu u gargaara aalihatakum ilaahayaalkiina in kuntum faaxiliina kuwax faray haddaad tihiin. in qulna waxaanu nidhi yaa naaru naaray kuunii ahaw bardan qabow wasalaaman iyo badbaadii nabadgeliyo calaa ibraahiima ibraahim korkii. dabkaasi xadhkihii wuu jaray, laakiin xaaddii nebi ibraahim tin ka mid ah ma uu gubin. se ka waran daawadahayga qiimaha badan oo haddii dhibaato ummadda oo dhan ku wada dhici lahayd uu ilaahay adiga iyo inta xaqa ku taagan idinka badbaadiyo, intee in la eg baad farxi lahayd? qisadan oo dhab ah waxa ay ku dhacday nebiyullaahi nuux calayhi salaam. ilaahay oo arrinkaa inoo sheegayana waxa uu leeyahay nebi nuuxna id waqti kas naadaa uu dhawaaqay min qablun horay. luuqii waaba ka horeeyeyba waa nuuxa. nebi nuuxna kas id waqti naadaa uu bariyey ilaahay min qablun horay. fastajabnaa waanu ka ajiibnay lahu nuux fanajaynaahu waan badbaadinay asaga iyo wa ahlahu ehelkiisiida min alkarbi kurbadii baanu ka badbaadinay alcadiimi ee markaa weynay. se ka waran daawadahayga qiimaha badanow haddii xanuun kugu dhaco, dawo kastana wax kaa tari weydo, xanuunkaaga dartiisna ehelkaa kugu dhaho ama magaalada ka bax ama annagaa kaaga baxayna. qisadan oo dhab ahina waxa ay ku dhacday nebiyullaahi ayuub. ilaahay oo inooga warramayana waxa uu naxus id waqti naadaa uu naabiyey rabbahu rabbigii uu baryey. nebi ayuub xilli uu rabbigii u naabiyey naxus buu yidhi ilaahay wuxuu yidhi annii anigu massaniya durru dhib baa i taabtay. ilaahayou dhib baa i taabtay wa anta adiguna arxamu araaximiina inta naxariisata midka u naxariis badan baa tahay. nebi ayuub calayhi salaam nebi la ibhay fastajabnaa waan ka ajiibnay lahu asaga. fakashafnaa waxaan ka faydnoon ka qaadnay maa bihi wixii ku sugnaa oo min durrin dhib ah. xanuunkii saarnaa oo dhan ilaahay wuu ka qaaday. wa aataynaahu waxaannu siinay ahlahu ehelkiisa intii ka dhimataa loo soo celiyey. wa midlahum macahum intaa in la mid ahoo micigoodana waa ugu darnay buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala. wa midlahum mafalkoodii in la egna macahum micigooda baan siinay raxmatan raxmad waaye iyo naxariis min cindinaa agteenna ka ahaatay buu yidhi ilaahay, iyo wadikraa waana lilcaabidiin dadka caabudiintae ilaahay caabudo dikri iyo xusuus iyo waana markaa u ah. se ka waran daawadahayga qiimaha badanow haddii aad raacdo doon oo dabeedna doontii socon weydo, go'aanna lagu gaadho in la qori tuurto oo qofkii qori tuurkaasi ku soo baxo laga tuurayo doonta.
qisadan oo dhab ahina waxa ay ku dhacday nebiyullaahi yuunus calayhi salaam. ilaahay oo arrinkaa inooga warramayana waxa uu leeyahay: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. nebigii dannuun ahaana xus id wakhti dahaba uu baxay muqaadiban asagoo ah mid caraysan fadanna wuxuu maleeyey ama la carageliyey an lan naqdira calayhi inaanan dushiisa qadaraynin fanaadaa waa naadiyey yuunisna fi dulumaati mugdiyaala dhexdooduu ka qayliyey. fi dulumaat waxaa loola jeedaa waa mugdiga caloosha malayga, waa mugdiga biyaha badda, waa mugdiga habeennimada, waa mugdiga gudcur ka jira, mugdiyaala dhexdooduu ka naadiyey. wuxuu yidhi: an laa ilaaha ilaa anta, ilaahayow adi ma ahee alla kaloo xaqnimo lagu caabudo ma jiro. subxaanaka, ceeb adaan lahayn. ilaahow adigaa ceeb ka nasahan oo ka hufan. innii anigu kuntu waxaan ahaaday min aldaalimiina, daalimiintan ka mid ahay buu yidhi. daalimiinta mid ka mid ah. fastajabnaa, waan ka ajiibnay lahu asagana, wanajaynaahu, waxaan ka badbaadinay min alghammi murugtii saarnayd. wakadaalika saasoo kale nunji almu'miniina, mu'miniintana u badbaadinaa. se ka waran daawadahayga qiimaha badanow haddii ubad la'aani kugu dhacdo, wakhtigii dhallinyarnimadana aad dhaaftay, uu madaxaagii ciroobay, lafahiina isku daateen, haddana aad ubad u baahan tahay. qisadan oo dhab ahi waxa ay ku dhacday nebi sakariya calayhi salaam. ilaahay oo arrinkaa ila subxaana wa tacaala id wakhti naadaa uu baryey uu u dhawaaqay rabbahu rabbigii, asagana owlaad la'aan baa haysay. rabbi buu yidhi: rabbiyow laa tadarnii, ha iga tegin fardan keligay, wa anta adiguna khayru alwaarisiina, inta wax dhaxasha midka u khayr badan baa tahee. fastajabnaa, waan ka ajiibnay lahu asaga, wawahabnaa, waxaan u hibaynay lahu asaga yaxye ayaan u hibaynay. wa aslaxnaa, waxaan u islaaxinay oon u wanaajinay lahu asaga zawjahu naagtiisa. innahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna kuwii u degdega fi lkhayraati, khayraadka kuwa u tartamay ahaayeen. wayadacuunana, kuwana tuugay ahaayeen buu dhahay ila subxaana wa tacaala. wayadcuunana, wayna tuugahayeen ragaban, xaal ayin kuwiina rajaynahaya oo naxariisteenna rajaynaya, warahaban, xaal ay ahaayeen kuwii cabsanayo cadaabkeenna ka cabsada. wakaanuu waxay ahaayeen lanaa annaga khaashiciina, waa markaa noo khushuuca. guntii iyo gunaanadkii kaynu u wada baahannahay waa allah, makhluuqana isaga ayaaba kaaga dhow. ilaahay oo arrinkaa inoo sheegayana waxaa gaadhay muuqaalka layg noo saar, sii sheer garee mahadsanid.